hargeysa waynu burburin doonaa sida hore talaabiib aynu ugu burburinay oo kale wadamada islaamka loogama baahna kaliya cambaareen iyo kuwa carabta waa inay qaadaan ficil oo tallaabo adag ah oo lagu weerarayo cid kastoo taabacda Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland waa maamul ka tirsan Soomaaliya oo tabar loo waayay sidoo kalena ninka madaxweyne isku sheega ee meesha joogo Cabdiraxmaan Ciro tallaabo adag iyo gacan bira ayaynu ku qaban doonaa isaguna oo waynu la xisaabtami doonaa cid kasto la macaamisha wad Israa'iil oo ay xasuuq ay ka geysatay Yemen, Lubnaan, Iran iyo wadamada kale ee muslimka tallaabo cad ayaynu u qaadi doonaa oo gacan bira ayaynu ku qaban doonaa waa siday ku hanjabeen Xuutiyiinta oo fadhigooda yahay Sanca ee Yemen markii ugu horeysay Xuutiyiinta ayaa si rasmi ah uga hadlay sidoo kalena bayaan ka soo saaray booqashada Cabdiraxmaan Ciro oo ku tagay Israa'iil gaar ahaan magaalada barakeysaneed ee Qudus madxafka halka ku yaala isagoo ka soo muuqday sidoo kalena oo xusay xasuuqii loo geysay Yahuuda sida iyagu ay aaminsan yihiin kaasoo ka soo muuqday madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo u baxay saaraya taaladii dadka xasuuqay ee loo suray waa sida iyagu ay aaminsan yihiin Israa'iiliyiintu Xuutiyiinta Yemen ayaa jawaab cad ka soo saaray iyaguna ay sheegeen inay qaadi doonaan markaan tallaabooyin cad oo ay ugu argudayaan walaalahooda ee muslimiinta ee lagu baabi'iyay Lubnaan, Yemen, Iran iyo wadamada kale ee muslimiinta waxayna sheegeen in wax aad loogu xumaado ay tahay sidoo kalena Hargeysa ay tahay ceebtii ay ceebeysay muslimiinta يعني hargeysa waxay ku tilmaameen oo ay ku sheegeen inay tahay meesha lagu fadeexeeyay ama lagu ceebeeyay islaamka iyagoona ay sheegeen in wadamada islaamka iyo sidoo kale kuwa carabta aan looga baahnayn kaliya cambaareen oo ay soo saaraan maalin kasta waxayna sheegeen in loo baahan yahay markaan in la qaado tallaabo cad ee lagu weerar tagayo ama lagu duulaan tagayo kaasoo lagu soo afjarayo mashruuca sahyuunida ay sheegeen oo ay ula jeedaan Israa'iil oo ay ku sheegeen oo Somaliland imika ka shaqeynayso sidoo kale Xuutiyiinta Yemen waxay xuseen in loo baahan yahay in Hargeysa iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Somaliland loo qaado tallaabo cad oo la wareego iyaguna ay sheegeen in xilliga ay tahay waqtigii dhabta ah ee gacanta lagu dhigi lahaa sidoo kalena la qaadi lahaa tallaabooyin cad oo loogu soo horjeedo sidoo kalena ficil loogu muujinayo dhibaatada imika ay ka shaqeynayso Somaliland madaxweyne isku sheega oo la jeedaan Cabdiraxmaan Ciro ayay ku eedeeyeen inuu yahay qof u adeega markasaba daraha Yahuuda iyagoona ay ku eedeeyeen inuusan marraba ahayn sidaasi muslimna uusan ku noqon karin maadaama uu adeegayo Yahuuda waxaana Hargeysa ay ku tilmaameen meel ay ceebeysay islaamka iyaguna ay sheegeen in Hargeysa loo baahan yahay in si degdeg ah gacanta loogu dhigo maadaama ay qayb ka qaadanayso fidida mashruuca Yahuuda ay ka leedahay ee bariga dhexe iyo gobolka waxay sheegeen Somaliland taageeradeeda oo ay taageersan tahay Israa'iil waxay ku sheegeen inaysan marnaba ku sii ooli karin ee gobolka iyagoona ay sheegeen taasina aysan suuragal ahayn inaysan marnaba qayb aysan ka ahaan karin jasiirad Carbeed iyo sidoo kale mid Islaamba waxay sheegeen xilligan la joogo inaysan marnaba ku suuragali doonin in Somaliland ama qof sheegta inuu yahay Islaam oo diinta Islaamka haysto oo sa qaadi karin tallaabooyin noocana Xuutiyiinta Yemen oo si carar leh uga hadlay booqashada Cabdiraxmaan Ciro ee magaaladii barakeysaneed ee Qudus waxay ku sheegeen arin aad loogu xumaado sidoo kalena dhawaan ay qaadi doonaan tallaabooyin cad oo ay ugu argudayaan walaalahooda muslimiinta oo horey dhibaato ay uga kulmeen waxay sheegeen in wadamada islaamka iyo kuwa carabta markaas ay la soo taagan yihiin cambaareen taana aan looga baahnayn iyaguna ay sheegeen in loo baahan yahay in wadamada islaamka iyo kuwa carabtaba ay qaadaan tallaabo cad marka laga soo tago cambaareen walaalihiina ayaa hortiina lagu xasuuqayay horey waad u daawan jirteen laakiin imika waxa loo baahan yahay in tallaabo cad aad qaadaan maadaama oo xaalku sii xumaaday intii horena afaraha ay ka sii baxday Xuutiyiinta Yemen waxay cabsi xoogan ay ka muujiyeen soo gaaritaanka Israa'iil ee gudaha ama soo gaaritaanka ee gobolka gaar ahaan wadda iyadu daris ay la tahay ee Soomaaliya iyagoona sheegeen in wax aad loogu xumaado ay tahay in Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland uu dhaxmado xiriir aad u wanaagsan dhanka Xuutiyiinta lama fariin gaar ah uma aysan dirin ee dowladda Soomaaliya taasoo ay ka dhigan tahay in Xuutiyiinta Yemen horey fariimo kala duwan ay ugu soo direen dowladda Soomaaliya laakiin ay ka daaleen iyaguna ay sheegeen imika in loo baahan yahay in la qaado tallaabo cad oo toos ah oo lagu weerar tagayo
xuutiyiinta yemen waxay ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabooyin cad oo ay ku weerartagi doonaan ee markaa, laakiin taa ay ku sheegeen inaysan cidna ku cafin doonin, iyaguna ay sheegeen inay u aargudi doonaan. waxay fariimo kala duwan u direen shacabka ku nool ee Somaliland deegaanada la yiraahdo, iyaguna ay u sheegeen in shacabkan ay isaga dheeraadaan ee maamulkan, sidoo kalena ay iska bari yeelaan taa oo ka badbaadinayso ee xuutiyiinta yemen iyo duqeymahooda ay kala kulmi lahayd. xuutiyiinta yemen waxay sheegeen inaysan marnaba cafin doonin cid kastoo ka qayb qaadata mashruuca yahuudda, iyaguna ay sheegeen inaysan cafis ugu qorneen meelna dhanka xuutiyiinta yemen, taa bedelkeeda ay qaadi doonaan tallaabooyin cad oo iyagu ay ku aargudanayaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka xuutiyiinta ee fadhigooda yahay magaalada Sanca ayaa bayaan ay soo saartay ku tilmaantay xiriir madaxweynaha ismagacaabay ee Somaliland, iyadoo sheegtay in booqashadiisa Israa'iil ay tahay tallaabo ceeb ah oo sii fogeynaysa Hargeysa. bayaanku ay daabacday wakaaladda wararka Sabaa iyo maamulaha xuutiyiinta ayaa lagu yiri qof kasta oo booqda gacan qaada ama aqoonsada dambiilayaasha dagaalka Sahyuunida waa inuu dareemaa ceeb iyo hoos u dhac. wasaaradda ayaa Israa'iil ku eedeysay in gacmeedu ku wasaqoobeen dhiigga carabta ee Falastiin, Lubnaan, Iiraan iyo Yemen, iyadoo ku tilmaantay Israa'iil cadowga ummadda islaamka iyo goobaha barakeysan. xiriirka sii kordhaya ee Hargeysa la sameynayso Israa'iil waxba kama tarayo danaha Somaliland, mana gaarsiinayo ujeedooyinka ay raadinayso ayaa lagu yiri ee bayaanka. maamulka xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in xiriirka Hargeysa iyo Tel Aviv uu Somaliland ka sii fogeyn doono deegaanka carabta iyo islaamka halkii uu horseedi lahaa aqoonsi iyo taageero siyaasadeed oo ballaaran. bayaanka ayaa intaasi ku daray in dalalka carabta looga baahan yahay inaysan ku ekaan cambaareen afka, balse ay qaadaan tallaabooyin muuqda oo looga hortagayo waxa uu ku tilmaamay tallaabooyinka ceebta ee Hargeysa. cambaareynta xuutiyiinta ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu gaaray Israa'iil safar loo arko mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee Hargeysa qaado tan iyo markii Israa'iil ay noqotay midkii maamulkii ugu horeeyay ee xubinka qaramada midoobay oo si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in safarka Ciro uu qayb ka yahay dadaal lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, isla markaana lagu wado in lagu furo safaarad Somaliland ku yeelato ee magaalada Qudus ee Hargeysa oo Hargeysa ay u aqoonsatay caasimadda Israa'iil. tallaabadaas ayaa si weyn uga careysiisay dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale midowga Afrika ayaa horey u diiday aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay ka hor imaanayso mabda ilaalinta midnimada, madaxbanaanida iyo dhuleed ee dalalka Afrika. Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in xiriirka Israa'iil iyo Somaliland uu qayb ka yahay qorshe khatar ku ah gobolka Geeska Afrika, halka Hargeysa ay ku adkeysanayso inay xaq u leedahay sameysashada xiriir dibadeed oo ay u adeega danaheeda amni, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed. bayaanka xuutiyiinta ayaa muranka Somaliland iyo Israa'iil siinaya xagal cusub oo ku xiran badda cas iyo siyaasadda gobolka. xuutiyiinta oo taageero ka hela Iiraan ayaa muddooyinkii dambe si weyn ugu lug lahaa xiisadaha ka taagan badda cas, iyagoo weeraro ku qaaday maraakiib ay ku sheegayaan inuu xiriir la leeyihiin Israa'iil ama ay u socdaan dekedaha Israa'iil. maamulka Sanca ayaa sheegay in Israa'iil aysan ku guuleysan doonin qorshayadeeda ay ku wajahan Soomaaliya iyo Geeska Afrika, isagoona ballan qaaday in Yemen ay ka hor imaan doonto tallaabadaasi. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xuutiyiintu ay si buuxda u taageersan yihiin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto waxay ku tilmaameen mashruuca Sahyuuni ah oo lagu beegsanayo Soomaaliya, Geeska Afrika iyo guud ahaan gobolka. waa 5 daqiiqo.